waa hagaag dhammaan asxaabtan dhagaysanaysaa waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan caawa la yeeshanayo xuseen sheekh danisey oo ka mid ah odayaasha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe enzey soo dhowo amaadsantahay waa dhawahay enzey waxaad nooga faalootaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe muxuu ku baxay magacaas waa jirtaa horta jowhar meeshaan la leeyahay magaca ka horeeyey waxaas ay baalguri ayadoo la leeyahay uu talyaaniga ku soo degay talyaaniga goorka uu soo dego isticmaarka markay dadka iskugu yimaadeen markaasaa nin la dhihi jiray sheekh axmed saabit la yidhaha reer saabit ahay maxay rahdaa sheekh axmed maxamuud saabit uuloo la dhihi jiray ayiri meeshaan jowhara alira markii isku yimid wasaadka meeshaan jowhara alira magaca jowhara saas ku baxay waan gartay in waxaa sheegtay in wadanka uu gumaysi uu yimid gumaystaha imisasa ayuu haastay goormee ayuuna yimid gumaysaha wuxuu yimid 1910kii asoo ka soo dhacay maxayran koodii yimid mahadaay gobolada dhan uu soo warwareegi jiray mahadeeyo markii dambe ugu dambeeyey ciidaas qaaday waxaa yiri warshad uu rabo inuu ka samaysto ciidii dhulka oo analyska oo lagu sameeyey ciidii cusbe ee noqdo cusba khasab ka baxay ma ay noqonin markaas isku soo laabtay jowhar markuu yimid cidii deganeed oo la tashay lix oday aad deganeed wala mooy baar ciise waaqbiyo sagaal garmagala aad joogtay lix oday ahayd lixdii oday markaas isku yiri baaro waxay war baaro jowhar yaa iska laha yiri markaas uu yiri wala mooy ciise la waa ciise jowhar yaa iska la wala mooy waxaa la wacay sagaal jowhar yaa iska la wala mooy waxaa la wacay waaqbiyo jowhar yaa iska la wala mooy waxaa la wacay garmagala oo iska gaalka wuxuu ogaaday in wala mooy ay leedahay jowhar uu ogaaday waan gartay xilligaasi waxaa sheegtay in lix oday ay degnaayeen ma jirtay odayaashaasi dad u yimid yaa loogu yimid gobolka odayaalkaas lixdaas oday markay joogeen talyaaniga waxaa gorgortan la galay lixda shiid laakiin waxaa dadka qoladan wala mooy le iyo waaqbiyo iyo gorgortan labadaas la galay waxaan rabaa dhul beereed waxaan rabaa dhul warshad lagu sameeyo dhul beereedkii waxaa dhiibeen wala mooy dhulkii deegaanka ahay iyo maxay yiraahdaan warshadana waaqbiya dhibtay meesha warshada oo ku taalo dhul waaqbiyo waay waan gartay waxaa sheegtay in dhulkaasi ay shiidla leedahay enzey waxaa jiro dadka qaar oo aaminsan dhulkan inay shiidla leeyihiin dadkaas iyagana maxaad dhihi leed wax kastaba waxaa kaaga daliil hadday shiidda waxba ay ku leeyihiin gaalka soo atariyaal waxaa kontraad la galay shiidlo wuxuu yiri dhul beereedan kaa rabaa iyo dhul warshad hase ahaatee dhulkan warshada iyo dhulkan beereedka kontraad uu sameeyey kontraadkaasoo lagu beesgareey 100 sano yaan beertii tabcanaynay warshadii aan khasab ku sameeyay inuu shaqeeyo 100 sano markay dhamaato warshada waa inuu wareejeynaa taasaa kaaga dili maxaa cid kale hadday la jirto tashi iyo talow sameel kontraadka waxaa saxiixay shiidlo weliba waxaa laga siixay wala mooy enzey waxaa jira gumaysta soo maray dalka oo muddo aad u fog soo maamulayay ma jirtaa shiidlo kaalin intee la eg ayay ka qaadatay xurnimada Soomaaliya khaasatan gobolka shabeellaha dhexe waa su'aal loo baahan yahay horta waxaa jirta laba xisbi la dhihi jiray SYL Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo ashaamu qabiil ku jiro iyo xisbi la yiraahdo xisbiyaalku waa badnaa waxa iskaga soo khud xisbi la dhihi jiray group seeshid kooxda lixda shiid la dhihi jiray labada xisbiya isku haysan jiray xayraadaan waxayna ku tartamayeen lixda meedan calanka rabnaa iyo 7 meedan calanka rabnaa intaasay maxay raadaan yay ku murmin jireen muddo haday ka soo wareegatay labadii xisbigan oo la leeyahay group seeshid waxa la baro talyaani atiin talyaani ayaga ujeedo in 1970 meedii calanka la qaato xisbiga Soomaali wuxuu leeyahay 60 la qaato sidaas ay hase ahaatee dad badan oo dhalinyaro kamid oo maxay u soo halgamiyo reer joor badanaan waa dhinteen dadkaas ajir oo reer joor oo qabiil walba oo dhashiyo daarood iyo hawiye oo ku jiraan ay ahaayeen waan gartay maxay caan ku jowhar ma noo sheegi kartaa goobaha taariikhiga jowhar waxay caan ku horta xagga shaqada waxaa ku ooli jirtay laba warshadood mid la yiraahdo Zokori faro oo sokorta lagu sameeyo iyo mid la yiraahdo Olio Fish oo
suufka iyo saliidda mari saliid oo laga samayn jiray looska labas warshadaan lahaa jirnay ha ahaatee waxaa kaloo jirtay maxaa yidhahda labadaas warshadood 1920 warshaddaa la sameeyey 1919 waxaa la sameeyey guryihii gaalada oo ay seexanayeen oo laba qayb iskaabulaha qaybna waxay ahayd dadka xaasaska leh 1926 aseendadaa la geed qaaday 1920 warshaddaa la suray labada buund ama xiintoodii waxaa la sameeyey 14 maarso 1923 ayaa la sameeyey ujeedadu ee roobka adow maxay yiraahdaan oo xilliga jiilaalka la gaaro si dhagaxaas u celi aseendadu ay biyo ku gaaraan sidaas loogu talagalay xuseen sheekh danizey waxaa jira halgamayaal aad ugu soo halgamay Soomaaliya iyo gobolka Shabeellaha Dhexe marka aad eegtid ama aad akhrisatid taariikhda buugaagta Soomaaliya kama dhex muuqdaan halgamayaashii Soomaaliya ee beelaha jareer weyne maxaa keenay taas horta waxa wax walba taariikhda sheegto taas aatay wax walba nin walba taariikhda soo saal gelina laakiin jaro aan ku ay degmo walba ay Soomaali joogto halgamo waa joogeen 13 kaas maahina dadka kale inta waxaa jooga jiray nin la dhihi jiray Katiin Yarow nin la dhihi jiray Cabdulla Bahgiri nin la dhihi jiray Cabdulla Khamadari nin la dhihi jiray Abbas Macalin nin la dhihi jiray Juuni nin la dhihi jiray Jimbaar nin la dhihi jiray maxay yiraahdaan Agay Xaaji nin la dhihi jiray Faarax Ducaale adiga waa tiriba dad badan oo jiro oo hawi iyo daarad halganku isla jireen waan gartay waxaa jira macallimiin iyo dad kale oo taariikhda qoro maxaa u diiday inay soo saaraan taariikhda dadkooda maadaama qof walba uu soo saarayo taariikhda walaalkiis waxaa u diiday maadaama annaga nalaga horreeyay xafiisyadii dadkii jooga inaga waramaana taariikh joral ogsoon yahay maalmaha ka mid nin Talyaani ahay oo Burguteri la dhihi jiray oo komisaari ah xafiiska loogu tagay waxaa ugu tageen nin la dhahay Cabdulla Bahgiri Cabdulla Khamadari Abbas Macalin maxay yiraahdaan nin la dhihi jiray hadda dhawow dhintii la dhihi jiray Faarax Ducaale nin dhihi jiray maxay yiraahdaan markaas xafiiska inuu ugu tagay gaalka dhulka dhigeen markay dhulka dhigeen ayuu in dilaan Robistol soo baxbistol markaas ay kala careen markaas bistol hasa ahaatee goorka la xiri yaaba qofka oo insan dhiga tagtay qof reer joreed gaalka waa gaarteen waa gawaantiseen gol xubaysna oo ku gowracdeen qof u dhalatay joor tuulada maxay yiraahdaan oo ku dhalatay mooy kala dhijir makay garaar celiyay wax ma nooga sheegi kartaa taariikhda makay garaar talgamaaheed 1900 ay dhalatay 1949 oo dhimay waxa ay gabar yar oo haliyay oo jecel gumaysiga ka soo horjeedo maalmaha ka mid waxaa dhacday iyadoo saldhig agtiisa marayso aliyiri intay u socotaa aliyiri markaasay tiri xageen meeshan shaqo ma ku leedin markaas aliyiri kolonyada la geeyo markaasay tiri kolonyan ku saaraa li keeni maayo kootin halay saare ka haleegasay tiri ana ilaa dilmaan anigoo caafimaad qabo ama nool anigoo hol ma qabanay tiri hortaas halgamay jirtay oo dhiig oo runtii dhiigeedu waxa isku shaqeynayay maxay yiraahdaan halganka Soomaaliya gabarayna wiilashayna iska badhaaf gabdhayna wasaas gaarayeen waan gartay wax ma nooga sheegi kartaa taariikhda Maymuun waa jirtaa Maymuun idin waxa waaye Israa'iilkan halgankan dhow kuma soo gaaray sababta dhaqsi ay dhimatay 1880 ay dhalatay 1940 markuu anagana soo galay maxay 40 waxaa gubay Talyaani waa la eri waxaa yimid Ingiriiska idin waqtigii Talyaaniga waa dhimatay Maymuun waxay ahayd adiga qof oo maxay yiraahdaan shirarka ay ku fiicneed meelaha goobaha ciyaaraha iyo ay ka gabi jirtay halgankan oo saan weyn ma iyada waa ka horeysay hore 40 dhimatay sidoo kale Zey waxaan ka doonaynaa inaad noo sharaxdo Abuukar Muude taariikhdiisa Abuukar Muude Cabdi Cigaal wuxuu ahay nin horta oo jecel maxay yiraahdaan madax banaanida waxa kale oo kugu sii lameeyno gumaysi diidda waa ahay sababtoo meeshan waxaa jirtay Talyaaniga markuu joogay xafiis oo u gaar ah yay sameysteen xafiiskaas oo gaarku ay sameysteen wuxuu ahay xafiis la dhihi jiray Syndicato di Laboratori xafiiska shaqada oo ahaa jiray hasa ahaatee gaalada waxay ugu diriri jireen Abuukar Muude ninka la dhihi jiray Maxamed Sheekh Cali Tootoyl aswaa dhintay nin la dhihi jiray Saalax Fuleel adiga waa badnaayeen waxay ahaayeen shaqada waxay dhihi jireen gaalada hay lacag loogu dar hadii loogu dirini lama shaqeeyayo
isbartiiba yimaada makaroof in qaad shaqada soo jeejir dad oo gumaysi ka soo horjeedo shaqaalaha cadaadiskooda iyo oo dhibayo ah jiro halgamow ayna ka sameeyeen marka laga yimaado Abuukar Muude ma jirtaa taariikh kale oo ay caan ku ahay Makaay Garaare iyo Maymuun haddii ay noqon lahayd hal abuurada gawiyada iyo barnaamijyo kale oo ay ku soo caan baxeen horta waxa lagu soo caan baxay maqsuunta markii la joogo maxay yiraahdaan halgan lagu jiro maalmaha kamid ayadoo beledweyn la joogo maxay yiraahdaan gabadhan oo la leeyahay maxay yiraahdaan Makaay Garaare la leeyahay waxaa dhacday idoo beledweyn la joogo heesaysa qofka yaa waaliir ayadana waa maqlayso waxay tiri magaceega Makaay waa minikeyga mooyko muusika Iswaa'il Ameer lagu sii magacaas ay bixisay waan gartay gawiyada iyadana Maymuun ay caan ku ahayd mana xasuusi kartaa waana xasuusi karay waxaa dhacday markuu Talyaaniga soo galayay yaalir Maynuuni waxaa soo galeen Talyaani ka waran gaala timid markaas ay tiri masaar geed ma gooyso geed kala ku daaban gaalada ma soo galin hadduu islaam wadin midkaasaan ku xasuustay waa gartay waxaan ka doonaynaa inaad noo sharaxdo taariikhda Cali Shoobare kumuu ahaa halkee ayuu u dhashay muxuu soo qabtay Cali Sheekh Jaas Macalin wuxuu ku dhashay degmada Mahadaay hase ahaatee wuxuu ahay nin asagana xornimada aad iyo aad xisbigan Iswaa'ilka asaga oo ku jira dadku waxsaasa u ahay wuxuu yiri aniga hadaa lay doorto hadda waxa la yiraahdaa xildhibaan markaas dibataata la dhihi jiray waxa ugu Mahadaay asaga iyo Cali Mahdi Mahadaay ka soo gali jireen marka la doorto wuxuu sameeyay kaliyan oo la yiraahdo macuu ballan qaaday inuu sameeyo oo Cali Shoobare leh kaligaas horta asaga ku hawshalay wuxuuna ay nin nabad jecelo taariikhda xataa dugsiga uu sameeyay dawladda markay joogto oo lagu barto taararkan oo maxay booliiska isgaarsiinta kaas caan ku ay asagan xilligii gumeystaha ma jiray gudoomiye ay lahayd gobolka Shabeellaha Dhexe kumuu ahaa duq magaalo jira markaas duq magaalo calanka inta la saaray 1956 Mahadaay waxaa joognin dhijir Khaliif Ciidoole Cismaan joor waxaa joognin dhijir Khaliif Cali oo Cabdulle labadooda la dhijir nin madoow maxay yiraahdaan waxa la dhijir duq magaalo dadka ugu horeeyay ah labadaas Ciidoole waa Mahadaay Caliyoona waa buundo cad iyo madoow Cali Shoobare u taleel weysi jiray dadkaas u tali jiray Jowhar waqtigaas waan gartay yaa maamuli jiray warshadii sokorta isna iyadoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in beelaha shiidlo ay gobolka Shabeellaha Dhexe ay wax hubin ah ay ku leeyihiin haddii ay noqon leed dhul beereed ama haddii ay noqon leed deegaano iyo maamulka isnaad horta waxa jira dadka u dhashay jira madax ka jira ilaa 6 seendo inta kala oo deegaanka hadda joogto shaqaale caadi ka jireen warshada nin la dhijir Xaaji Xuseen Taayax madax ka jira Xaaji Xuseen waxa uu gaaray ninkii shaqada ka soo daaday inuu yiraahdo qaac banaanka ka fiirsaysay inuu yiraahdo asaga gaalka warkiisa le ka soo jiray shaqaale asaa khuri jiray shaqaale asaa maxaynin oo dirita as ayo xataa uu ka seeynin maxay yiraahdaan walaalka waa iyo adaa kula dhashi adeero ku yeeba nin daacad ay ninkaas xukumi jiray isnaad Xuseen Taayax Tuuriye la dhijir 1893 oo dhashay 1989 oo dhintay ninkaas madax ka jiray dirisoone generaal jiray dadka u dhashay degmada Joor ayaga le madax ka jiray marka kacaanka urtay dadkan kaleenta ay yimideen maxay yiraahdaan Hargeysa iyo xamar iyo oo ka yimaadeen saas oo ahay waan gartay adoo ugu dambeyn maxaad ugu baaqleed dadka ku dhageysanaya ama ku daawanaya waxaan dheelaa dadka aniga dhageysahayo haday Soomaaliyada jirto oo loo baahan yahay dawlad cadaalad hal inay isjeclaadaan hadda waxaan maqleynaa maxay yiraahdaan qabaa'il mabla ka jira waqtiga xisbigaasana ajir jirtay waxaan dheelaa ummadda Soomaaliyeed meel almeeshi joogaan waa inay hal ahaadaan si maxay yiraahdaan oo midnimo inay ka shaqeystaan aad u umaysan kaas waxa uu ahaa Xuseen Sheekh Dalizay oo noogu faalinayay taariikhda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dadkii soo maray ee halyeeyada soo maray beelaha Jareerweyne iyo taariikhda ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan caawa la yeeshtay Xuseen Sheekh Dalizay anigoo Catoshire ayaa inala socodsiinay tan iyo tabin dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiiso badan